Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa xalay 9kii fiidnimo dib u helay xorriyadiisa kadib in ka badan 10 maalmood oo la waayay meel uu ka baxay nolol iyo geeri waxaana la sheegay in afduubkiisa ay ka dambeeyeen ilaa 4 nin oo watay gaari aanan lahayn astaanta lambarada baabuurta lagu aqoonsado ee taarikada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Kenya iyo qaar ka mid ah xubnaha u dooda xuquuqul insaanka dalka Kenya ayaa horey u sheegay in ragga afduubka geystay ay ka tirsanaayeen ciidamada qarsoon ee dawladda Kenya. Professor Cabdiwahaab ayaa ka gaabsaday inuu telefoonka nagula hadlo balse eheladiisa ayaa sheegaya in la soo daayay isagoo caafimaad qaba inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan soo deyntiisa iyo qaabkii loo maray. Cabdicasiis Sheekh Cabdisamed oo ay walaalo yihiin professorka ayaa ka waramaya. Daab uu fiican yahay uu nabad qaba ma sha Allah wax dhib ma jira xalay 3 saac waxa guriga imaaday marka anagana wanu jooga xaafadda dhan cid dhan wanu joogay ma sha Allah duu fiican wax dhib ma jiraan marka caafimaadka uu fiican yahay marka waxaan la sheegay inuu gacanta nabad gaarin laakiin hadda gacan nabad kama gaarin oo meel nabad ka gaarin malaha caafimaadkiisa uu fiican yahay wallahi nin wuxuu ahaa iska baashaalay oo qaxwo iska cabaay ma sha Allah wax dhib loo geystay malaha su'aalaha yaran baan loo weydiiyay su'aalahin way soo dhamaadeen wax hadda maxkamadda soo geynana malaha cid hadda asaga dambi ka gasho dhibaato weyn u geysto hadda uu dacweynayo cidaas dhib i geysto u leeyahay malaha waa la wada ayr su'aalan baa la soo weydiiyay waa la soo celiyay guurisa asaga naad qolo soo celiyay marka waxyaalahaas qaadana ka sii halada si loo qabtay waxyaalaha loo qabtay wax la sababta loo qabtay waxa sadaan ka sii halama rabo insha Allah asagoo nabad oo haduu noo imaaday anaga had wax dambe oo ka hadlayno oo si sheegay moolaha alxamdulillah ala kulli xaal ma jirto wax maxkamad ah oo la geeyay professorka hase yeeshee qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhaweeyay in professorka uu xorriyadiisa marka la dib u helo. Siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada Soomaalida ee Kenya ka soo jeeda ayaa bariyihii la soo dhaafay dadaal xoogan ugu jiray sidii loo heli lahaa halka lagu afduubtay ama lagu haysto professorka. Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.